waxaa maanta magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka lagu qabtay xaflad ay heshiis iskaashi oo ganacsi ku wada gaareen bangiga Agro Bank iyo waliba shirkadda isgaarsiinta ee Somnet. Heshiiskan uu ku qotomay daahfurka adeega bangiga lagu magacaabo Buraaq oo ah adeeg sahlaya in macaamiisha ay koontadooda bangiga si fudud ugu maamushaan lacagaha ayaga oo adeegsanaya adeega jeeb ee shirkadda Somnet. Xafladda daaha lagaga rogayay adeegan waxaa ka soo qayb galay maamulka bangiga Agro Bank, kuwa shirkadda isgaarsiinta Somnet, mas'uuliyiin iyo marti sharaf kale. Gudoomiyaha shirkadda isgaarsiinta Somnet, Cabdullaahi Axmed Cismaan Diinle, oo goobta ka hadlay ayaa soo dhaweeyay in maanta ay bangiga Agro Bank wada gaaraan heshiiskani. Waxaa sharaf iyo maamuus weyn inoo ah inaan goobjoog ka ahaano xafladdan qiimaha iyo qadarinta mudan oo ay shirkadda isgaarsiinta Somnet iyo Agro Bank ku kala saxiixanayaan heshiis iskaashi ganacsi. Heshiiskaas waxaa lagu daahfuri doonaa adeega Buraaq. Adeegaas oo macaamiisha bangiga u oggolaanaya in ay telefoonadooda gacanta ku maamushaan lacagahooda bangiga iyagoo adeegsanaya adeega jeeb. Shirkadda isgaarsiinta Somnet waxaa ka go'an fududeynta iyo daboolidda howlaha macaamiisheeda, waxayna diyaar iyo heegan buuxa mar walba u tahay haqabtirka, dhammaystirka iyo buuxinta kaalinteeda horumarineed ee adeegyada bulshada. Gudoomiyaha Agro Bank, Xuseen Maxamed Nuur Gorod, ayaa dhankiisa tilmaamay guulaha uu bangigu u gaaray muddadii koobnayd ee uu jiray, isaga oo dhanka kale tilmaamay sida wanaagsan ee adeegan uga faa'iideysan doonaan macaamiisha bangiga. Agro Bank waa bangi u taagan hirgelinta iyo kobcinta hay'adaha wax soo saarka sida beeraha, kalluumaysiga iyo xoolaha. Ogtiin bangigu hal sano ayuu jirsaday, halkaas sano intuusan gaarin xataa wuxuu bangiga gartay inuu caawiyo kaalmeeyo dadka beeralayda ahay. Waxaa la siiyey beeralaydii amaah dhan $1 milyan, taas oo laga lahayn wax dul saara oo ahaa qardi xasan. haddana waxaa socoto soo celintii lacagtii la amaahiyey beeralaydii iyadoo ah qardi xasan. Beeralayda la siiyey amaahda qardi xasanka ah waxay si sahlan lacagooda u soo celin doonaan ayagoo isticmaalayo Buraaq Service. Gudoomiyaha ururka bangiyada dalka, Yaasiin Maxamuud, oo isna goobta ka hadlay, ayaa waxa uu tilmaamay muhiimadda ay adeegyada noocan oo kale ay u leeyihiin bulshada Soomaaliyeed. Ururka bangiyada Soomaaliyeed, Somali Bankers Association, waxa uu dhiirigelinayaa in la gaaro financial inclusion oo ah in dadka kuwa ugu danta yar ay ka mid yihiin dadka beeralayda iyo xoogsatada ah inay ku soo xirmaan adeegyada bangiyada ay ku soo xirmaan. Maanta adeegan meeshaan laga furay Buraaq Service wuxuu sahlaa in dadkaas oo ah dadka ugu tabarta yar, dadka ay ka mid yihiin beeralayda oo aysan u dhoweyn mararka qaar xarumihii bangiyada aysan u dhoweyn, inay si fudud u isticmaalaan adeegyada bangiga. taa oo hadda adeegan shirkadda Somnet ay kula saxiixanayso oo si sahli doono in dad badan lagu sii gaaro. Gabagabadii kulanka ayaa waxaa laga soo saaray warmurtiyeed lagu soo koobay nuxurka heshiiska iskaashi ee dhexmaray shirkadda Somnet iyo waliba bangiga Agro Bank. Waxaa sharaf weyn u ah Agro Bank iyo shirkadda isgaarsiinta Somnet Telecom iyagoo ka jawaabaya baahida bulshada Soomaaliyeed ee ku saleysan helitaanka adeeg bangi oo fudud inay maanta kala saxiixdaan heshiis iskaashi ganacsi kaasoo lagu soo bandhigayo adeega cusub ee Buraaq Service. Adeega Buraaq Service wuxuu macaamiisha Agro Bank ku leh akoonnada u sahlayaa inay si fudud ku maamushaan lacagahooda bangiga iyagoo adeegsanaya jeeb service. Macaamilku adeegan cusub wuxuu u sahlayaa inuu lacag dhigan karo, kalana bixi karo, sidoo kalena samayn karo account to account Agro Bank. Macaamilka buuxiya shuruudaha adeega Buraaq Service wuxuu nagu soo booqan karaa dhammaan xafiisyada aan ku leenahay magaalada Muqdisho isagoo ka heli doona diiwaangelin fudud, waxaana diyaar ugu ah shaqaale u carbisan oo adeegida macaamiisha. wixii faahfaahin intaas dheeri ah waxaad nagu soo booqan kartaan xarumaheena magaalada Muqdisho. Cabdifataax Muumin, 5TV, Muqdisho.